بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkan oo aan ku eegi doono xaaladda siyaasadeed ee waddanka Denmark gaar ahaan qorshaha dowladda waddanka Denmark ee hadda ku saabsan xaafadaha ay ku badan yihiin dadka laga tirada badan yahay ama sida imaka ay ku sifeeyaan ay ku badan yihiin dadka ka soo jeeda dalalka reer galbeedka ahayn haddaba si aynu marka ugu horeysa waraysigan kooban oo aan la yeelan doono Maxamed Cabdullaahi Cabdiwahaab Macaani oo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Korin aanu fahno ayaa waxaan jecelahay marka hore bilaa weydiin Maxamed xaafadahan dadku ay ku badan yihiin inta badan waxa loogu yeeraa ghetto goorma ayaa xaafadaas loogu yeeri karaa maxamed aad iyo aad u mahadsan tahay barnaamijka qurux badan oo runtii aad soo diyaarisay waana runtii arrin hadda taagan oo dadka Deenishka ah iyo dadka ajnabiga ah ay la yaaban yihiin dawladda hadda xukunka haysata waxyaabaha ay la damacsan tahay inay ka qabato barnaamijkan loo bixiyay ghetto waxaa la bixiyay muddo hadda laga joogo 10 sano ka hor ayaa ghetto la sharciyay kelmadda ghetto asalkeeda maxamed waxay ka timid qarnigii 15aad ayay baxday waxayna ku baxday magaalada Venezia dad yuhuud ah ayaa waxay degeen hal xaafadood oo markaa dadkii Talyaaniga ay ugu magacaabeen yuhuud inay tahay dad dhaqankooda iyo diimahooda iyo aragtidooda caadooyinkooda ay ku isticmaalaan xaafadda kaliya bulshada inteeda kale aan ka warqabin marka kelmaddu ghetto meesha asalkeeda ka timid Denmark waxay u isticmaashay markii dambe Mareykanka ay u gudubtay dadka madowga Mareykanka laga qaaday ee Afrika ayaa loo bixiyay xaafadaha ay degaan marka Denmark waxay bilowday in xaafadaha qaarkood ay ku tilmaanto ghetto sababta ay tahay shuruudo ayaa loo sameeyay ilaa iyo 16 qodob ah haddaan qodobadaas wax yar ka taabto waxaa kamid ah xaafaddu in ay degan yihiin dad ka badan 51% oo ka yimid wadamada ay ku magacaabeen wadamada aan reer galbeedka ahayn ama wadamada aan Yurub ka tirsanayn waxaa laga wadaa wadamada Afrika iyo wadamada Asia iyo Carabaha waxaa kaloo ku jira dadka meesha degan haday 51% ay ka badan yihiin dadkaas ay yihiin dad shaqo la'aan ah xaafadan ay ku badan yihiin waxa ay ku tilmaameen dambiilayaal ama dambiilayaal waxa loo yaqaan criminalka waxay kamid noqonaysaa ayadana waxyaabaha lagu qiimeeyo xaafadda in loo bixi magaca ghetto waxa kaloo ayadana ugu daran ee lagu daray dadka degan haday yihiin dad shaqo la'aan ah in ka badan 51% ayna ka kala yimaadeen xaafadaha aan reer galbeed ka tirsan hore u sheegay marka qodobada aad u badan yihiin inta waxay inta ugu muhiimsanaa marka qodobada kale way badan yihiin waxa kamid ah oo kale hadii dadka dhaqaalaha meesha degan dhaqaalahooda uu ka yar yahay boqolkiiba 20 in ka yar laakiin midda ugu xiisaha badan ay dadku ila yaaban yihiin ay ku tilmaameen xoogay inay xaq jirnimo tahay marka arinta la sharciyeena waxa kamid ah hadii dadka meesha degan in ka badan 50% ay yihiin dad ka kala yimid wadamada aan ahayn wadamada reer galbeedka ah waxa laga wadaa marka wadamada muslimiinta ah taala marka waxay abuurtay debate iyo doodo ah arrinkaas waxay ku forortaa meeshan ku badano dadka muslimiinta ay ku bataan waa meel khatar ah oo la magaleen ah oo markaas la leeyahay xaafadani waa halis iska ilaaliya waan gartay marka in dawladdu hadda waxay doonaysaa ama ay wada wada qorshe ay doonaysaa inay xaafadaha caynkaas ah oo magaalo walba inta badan magaalooyinka weyn waddanka Denmark ku yaala isla markaasna xaafad kasta oo kamid oo magacaas loogu yeeray dadka Soomaalida aad u degaan ama dadka degan ay kamid yihiin in la baabiyo marka qorshahan baabiinta ee hadda ay dawladdu ku jirto iyo halka uu marayo iyadana warbixin naga sii maxamed marka ugu horeysa barnaamijkan geetaha aan ku sheegay muddo fara badan ayaa dawladihii soo maray Denmark ha ahaadaan kuwa garabka midig u badan iyo kuwa garabka bidix waxay mar walba ay ka hadlayeen barnaamijkan iyada ghetto isla markaa waxaa jirta in loo sameeyo wasaarad gaar ah oo leeyahay wasaaradda integrationka ama wasaaradda isdhexgalka dawladda hadda waddanka gacanta ku haysa ee Venstre ama garabka bidix ah waxa ay keentay kowdii bisha 3aad sanadkan ku jirnaa 2018 waxay soo saartay ama ay keentay baarlamaanka motion ay ku magacaawday Denmark oo in laga xoreeyaa ghetto 2030 waxaan rabnaa ay dhaheen in Denmark ay 2030 ay noqoto meel aan aysan ka jirinba meel ghetto ah ama dad isku aragti ah isku diin isku dhaqan ah ay ku urursan yihiin marka waxay markaa ku cadeeyeen aragtidooda ay leeyihiin ma rabno inaan helno waxay ku tilmaameen parallel samfun oo ah bulsho laba bulsho oo kala duwan oo kala aragti ah oo mid walba iskeeda u koraysa waxay leeyihiin waddankan wada Denmark ma yeelayno in bulsho kale naga samaysanto oo markaa ayadana iskeeda u hormarto ayadoo markaa dariiqa ay u arkayaan ay u hormaraysan inuu yahay dariiq khatar ah oo halis ah marka booshinkaas la keenay waa la ansixiyay xisbiyada dhan baa wada ansixiyay ilaa hal iyo laba xisbi ayaa diiday booshinka markuu dhaqan galaya mar dhow waxaan hadda la bilaabay in xaafadaha ama degmooyinka laga fuliyo marka waan u imaan doonaa barnaamijkaas sidii rabaa in u fuliyaan laakiin marka hore su'aashaadii ahayd mooshinkan la keenay in la ansixiyay waa la ansixiyay
wuxuuna ka kooban yahay 21 qodob oo runtii aad iyo aad khatar u ah oo qaarkood ay ku jirto in guryahaba la dudumiyoba waan gartay marka waxaan usoo gudbi doonaa hadda magaaladan Colne aanu deganahay xaafadda dadka Soomaalidu ugu badan yihiin Sco Parking waxay ka mid tahay xaafadaha lagu asteeyay inay tahay ghetto marka qaabka ay doonayso dowladdu inay wajahdo iyadana bal nooga war maxamed sidaan hore u sheegay warbixinta Denmark waxaa ku yaala 27 xaafadood oo ay dowladdu ku safaysay inay yihiin ghetto ama meel lama galaan ah lama galaan waxaan u isticmaalay kelmadda waxay ku tilmaameen inay tahay meel halis ah dambiyad ay ku badan yihiin criminalka ah qaarkood xabada iyo ma aragtay iyo rasaas ay ka dhacda maalin walba sida Copenhagen iyo Oslo kale iyo Volsmusa xaafadda la yiraahdo Odense ku taala marka 27 kaasi ayaa waxaa loo sameeyay darajooyin sida ay u kala qatarsan yihiin 16 ayaa laga soo dhaxbixiyay oo la yiri waa meelaha ugu qatarsan 16 ka waxaa ku jira xaafadda ku taala Colin laba xaafadood oo la yiraahdo Sco Parking iyo Monkabo ama Monkvegen labaas xaafadood waxay kamid yihiin sida dawladdu sheegtay labada xaafadood 16 ka xaafadood ay ugu qatarsan ee marka khatarta ah in markiiba wax laga qabto u baahan marka waxaa jira hadda in la wado shirar Colin mid baa hore u dhacay kan hadda wuxuu dhacayaa 4 bisha u dhacayaa waa maalinta arbacada soo socota waxaa dadka casuumay duqa magaalada Colin ayaa wuxuu marti qaaday in dadka degan xaafadaha Sco Parking urur ahaan u qaabaysan iyo hay'adaha la shaqeeya arrimaha ajnabiga ah in la marti qaado oo marka laga dood ama debate laga sameeyo sharciga dawladdu soo dejisay seen u fulinaa marka ururka Soomaaliya lagu marti qaaday shirka waan tagi doonaa marka 22 ka qodob waan ka hadli doonaa laakiin hadda xaafad ahaan waxaynu ku jirnaa 16 ka xaafad ugu qatarsan degmada Colin ayay ku jirtaa marka doodeedana waan arki doonaa insha Allah waan gartay markaas aynu hoos ku sii daadegno bal 22 ka qodob iyadoo ay dawladdu fikrad ahaan u soo jeedisay inay ku wajahaan sida ay xaafadahan ay u baabi'in lahaayeen 22 ka qodob bal wixii aad ka gaari karto insha Allah bal ay naga xus maxamed qodobada waxa ay wakiil daran yihiin waxay u kala qaadeen ciwaano ama waxay u sameeyeen qodob ahaan bay u habeeyeen ciwaanka ugu horeeya saddex qodob waxay ku qoreen in si physically ah macnaha si dhismo ahaan ah loo baabiyo xaafadaha qayb kamid ah waxaa ku qoran isbedel in lagu sameeyo xaafadda oo marka xaafadaas lagu kordhiyo in laga dhigo meel dhalinyarada ardayda wax barata ay degaan guryaha familada degan oo weyn horta la baabiyo waxaa kaloo ku qoran in guryaha laga saaro ama kontraadoodii ama aqdigoodii la fasaqo dadka qaar ee guryaha degan familada weyn oo liidada halka ka guura oo meel kale u guura waxaa kaloo kamid ah qodobka afraad in xaafadaasi wax allaale wixii ceer qaata gebi ahaanba laga joojiyo lacagta lagana saaro xaafadaasi si loogu milo xaafado kale haddii qofka uu rabo inuu xaafada uu soo dego uu lacagta ceerta u qaato in markaas lacagta ceerta barkeeda la siinayo lacag kale oo ayadana ceerta kasii hooseysa ee la lacagta integrationka ee dadka waxa uu ku baxay sharcigaas 2012 yimid dadka lacagta qaata haday soo degaan horta ma soo degi karaan kuwa deganna in marka ayaga laga raro waxaa kaloo ka jira sharci cusub oo la keenay ayagana ah in dadka meesha degan la siiyo abaal komunihii xaafad komunihii ama degmadii xaafadaasi ay ku taala geetaha ah shaqo fiican ka qabata ama amarada dawladda fulisa in la siin doono abaalmarin aad u weyn waxaa kaloo ku qoran qodobka 9aad in booliska uu 24 saac meesha u taagnaan doono control aan xad dhaaf inuu ka sameyn doono waxaa kaloo ugu qatarsan oo qodob ku qoran oo ah in xaafadaasi loo sameeyo dadka degan dambiyada ay galaan laba laab u noqon doono marka loo eego dadka kale ee xaafadaha caadiga degan marka intaas waxay ahaayeen qodobada ugu qatarsan waxaa kaloo ku jira haddii hoos loo sii dego xaafadaas haddii uu ku yaalo iskuul dugsiga sare hadda Sco Parking oo kale way leedahay dugsi sare u dhow oo leeyahay Kogi ama Colin Gymnasium waxaa ku qoran xaafadaasi ardayda dugsigaas dhiganaysa inaysan 25 ajnabiga ahaan aysan ka badanin taamaanada waxa weeye 125 ajnabiga iskoolka dhiganaya oo gaaro 25% in la joojin doono ajnabi dambe inuu iskoolka u soo wareego oo taa waxa weeye xaafad kale iskoolka raadsan weeye waxaa kaloo ku qoran in ardayda xaafadda agdegan ee dhigata xanaanadaha in xanaanadaha markay aadayaan imtixaan laga qaado iskuullada u dhowna hadday dhiganayaan ilaa fasalka 3aad markaa imtixaan laga qaado mar walba ay gudbaan waxaa moodaa in cadaaris gaar ah oo culays uu soo wajahay dadka muslimiinta ah gaar ahaan dadka Soomaalida ee xaafadaha degan
marka waxaan inakoo barnaamijyada ka dhigi doona taxane oo si joogtaa dadka ula socodsiin doona xaaladda siyaasadda waddanka Denmark. Waxaan jeclay ugu dambeyn bal inaad kusoo koobto maxaa tala ah ee dadku hadda ay qaban karaan maadaama oo ay jirto qorshaha ballaaran ee ay dowladdii guud iyo degmooyinkiiba ay damacsan yihiin inay tallaabadaasi qaadaan. duqii degmadan oo hadda shir arrinta lagaga hadlay dadkii ugu yeeray maxaa la gudban dadka Soomaalida degan degmadan ama dhageysanaya barnaamijkan ee degan waddanka Denmark gaar ahaan xaafadahan in ay sameeyaan. maxamed arrintan waa arrintii su'aal aad u fiican waa su'aashaad laakiin arrintu waa arrin aad u adag sababtay tahay qof gurigiisa degan oo caruur leh oo shaqaysta in la yiraahdo xaafadan waa halis ka guur macna ma sameynayso. dawladdu waxay u digdig leedahay siyaasad oo dadka khubarada ah ee Denmark siyaasadeeda sahmiya ay yiraahdeen waxay u baahan tahay cod inay ku hesho la dagaalanka dadka muslimiinta ama ajnabiga ah laakiin wax macna ah ay sameynayso oo xagga siyaasadda isbedel ma imaanayo. laakiin dadka Soomaalida waxaan kula talin lahaa marka hore in xogaaya la isdejiyo shirarka aan ka qayb qaadano aan fiirino waxa ka soo bixi doona qorshahani sida practical loo fulin lahaa waa la ciladeeyo siyaasi mudan baa ciladeeyay waa arrin aad u adag in la fuliyo laakiin wuxuu noqon doonaa kulli barnaamij taxana ah oo aad u dheer. dawladdu waxay tiri 2030ka ayaynu ka xoreynayna ama ka baabi'inaa Denmark geetada waa 12 sano muddo ah. dawladdu way dhici kartaa dawlad kale qabsan kartaa siyaasaddu way isbedeli kartaa laakiin waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed inay ku feejignaadaan in la socdaan wax dhacaya sababtay tahay waxaa loo soo xidxiitay in dadka weerar lagu soo qaado guryahooda la soo galo carruurtooda la xirxiro iskuullada lagu la dagaalamo mabaadi'dii waxay aaminsan dhaqmadooda la dagaalamo. marka waxaan rabnaa inaan marka hore isdejino aan la socno wax dhacaya qofna yuusan tallaabo qaadin aynu fiirino balqaabka ay dawladdu ay u damacsan tahay inay fuliso. hadda shirka afarta dhacaya duqa magaalada dadka casuumay marka waxaan rabnaa inaan ogaano waa maxay qorshaha practicalka ay dawladdu ay rabto inay ku fuliso waayo dadku way kala duwan yihiin dad waxaa jira beeshara aan meel la guuri karin waxbana aan ka qusaynin arrimaha dhacaya waxaa jira dad shaqaysta oo aan waxba ka qusaynin waxa dhacaya waxaa jira dad aan shaqaynin oo ayagu loo degdeg leeyahay si toos ah u qabanaya sharciyadaasi waxaa jira dad dambiilayaal ah oo culaysku ku dhacayo idaan dambi gelin oo xaafad degan oo nadiif ah waxba aan shaqadaas sharcigaas waxba aan ka tareenin marka laakiin sharciga wuxuu u muuqdaa in dadku uu wada ciqaabayo marka say u suurta galaysaa waxyaabaha dooda xiisaha leh waxay tahay qofka isaga shaqaysta dambina aanan gelin sharciga inuu xaafadda deganaado maxaa dhiba soo gaari kara bal marka arrinta aynu fiirino siday wax u damacsan yihiin waayo waxaa moodaa hadda in dadkoo dhan hal sakiin loogu wada xiraan leeyahay ciddii meesha degta dhibaata ku dhacaysa. marka barnaamijku waa taxanay siduu sheegay ori maxamed amiin siyaad marka wal shirka waan ka qayb qaadan doonaa wixii soo baxana maalin dambe hadda aan ka hadli doonaa dilaa yiraahdo. mahadsanid waxa waa maxamed cabdullaahi cabdi wahaab gudoomiyaha Soomaalida.